السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن داوديال halkan waa janalka Al-Hurriya News. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karoon wararkan idinahayna xilligan filla Soomaaliya oo ku fashilantay in xildhibaano taageersan ay ka soo baxaan baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. Ergooyin ku sii qulqulaya gaalkacyo kadib markii madaxweyne Xaafshir uu ku dhawaaqay dawladda Kenya oo cabsi ka muujisay in mar kale Al-Shabaab weerar ay ka geystaan gudaha dalkaasi. Jubbaland oo ku dhawaaqday howlgal ka dhan ah deegaanada Al-Shabaab ay ka maamulaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Latariya oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah xog arintaas la xiriirta ayaan idin soo gudbin doonaa. qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa Carabta oo geeriyooday iyo Iran oo shaacisay cidii ka dambeysay shilkii diyaaradii Ukraine Airlines. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janalka Al-Hurriya News. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee soo gaaraan muuqaalada wararka warbixinada iyo wareysiyada xilli walba halkan aan soo galino. mar kale kulanti hagaagsan saaxiibayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona wararkan idin hayna xilligan. haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. filla Soomaaliya ayaa ku fashilantay in xildhibaano taageersan ay ka soo baxaan baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. liis xildhibaano ah oo aysan filaynin xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo baxay baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug sida ila lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijiyeen. inkastoo ay jiraan tiro magacyo ah oo markii la soo gudbiyay kadib dawladdu ay ku bedeshay dad kale sida ay sheegeen beelaha qaar ee halkaasi dega, haddana inta badan xildhibaanada la shaaciyay ayaa ah kuwa aan ku aragti ahayn dawladda federaalka Soomaaliya. ila waradiye lagu kalsoon yahay oo ku dhow filla Soomaaliya ayaa Al-Hurriya News u sheegay in la rumaysan yahay in ka badan 70% xildhibaanada soo galay baarlamaanka Galmudug ee shalay lagu dhawaaqay ay yihiin kuwa taageersan xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jira. xildhibaanadaasi badankood ayaa taageersan xisbiyada Wadajir iyo UPD oo doorashada madaxweynaha ku galaya laba kamid ah musharaxiinta ugu cadcad, kuwaasi oo kala ah Kamaal Guutaale Wadajir iyo Cabdiraxmaan Odawa oo ka tirsan xisbiga UPD. dawladda Soomaaliya ayaa muddo dadaal ugu jirtay in ay xaqiijiso in xildhibaano taageersan ay ku soo baxaan baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. hase yeeshee dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa aan guuleysan xitaa haddii ay dawladdu bedeshay saxiixayaashii saddexda ahaa ee Galmudug. qaarkood lama yaqaan sida arintan ay ku dhacday, balse tuhunka ugu badan ayaa ka jira in qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada maamul sameynta Galmudug oo dawladdu ay u haysatay in ay ku aragti yihiin ay ahaayeen kuwa si hoose ula shaqeeya xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jira. xubnahaasi iyo qaar ka mid ah odayaasha Galmudug oo caro hor la u qabay dawladda ayaa la rumaysan yahay in ay ka shaqeeyeen soo bixitaanka xildhibaano badan oo aan ku aragti ahayn dawladda federaalka Soomaaliya. saraakiil ka tirsan filla Soomaaliya oo la hadlay Al-Hurriya News diidana codkooda in loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa sheegay in dawladdu tillaabooyin kale aysan qaadin, natiijo wanaagsanna kama soo socoto dhanka dawladda marka la eego dhismaha maamulka Galmudug. soo bixitaanka xildhibaanada mucaaradka ah ayaa micnaheedu waxa uu yahay in dawladda federaalka Soomaaliya arintaasi dhabarjab ay ku tahay. si kastaba waxaa muuqanaysa in musharax aan taageersaneyn dawladda federaalka Soomaaliya loo dooran doono maamulka Galmudug, inkastoo arintaasi aan la saadaalin karin. dawladda ayaa weli haysata awood dhaqaale oo musharaxiinta mucaaradka aysan u babac dhigi karin, taasi oo ay ku adeegsan karto xildhibaanada mucaaradka ah in ay iibsato si ay u doortaan musharax ay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay wadato. waxay hadda u muuqataa in xalka ugu dambeeya ee dawladda uu midaasi yahay, ayuu yiri mid ka mid ah mas'uuliyiinta filla Soomaaliya. dawladda ayaa la rumaysan yahay in ay xilli dambe ka war heshay in xildhibaano mucaarad ah ay ka buuxsameen liiska baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. hase yeeshee waxa ay qaadatay in aysan fargelin ku sameynin sababo la xiriira hanaanka Galmudug oo sii daba dheeraada darteed iyo kala fogaansho iyo xiisado cusub oo xilligan ka abuurma dhismaha maamulka Galmudug. haddii madaxweyne taageersan mucaaradka kana soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya uu ku soo baxo maamulka Galmudug, waxa ay noqonaysaa in hal bacad lagu lisay ay noqoto dadaaladii ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya ee dhinac walba lahaa ee lagu ridi rabay madaxweynihii dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
ergooyin badan ayaa kusii qulqulaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii shir halkaasi uga dhawaaqay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka Galmudug ayaa ergooyin u diray magaalada Gaalkacyo oo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu kaga dhawaaqay dhismaha maamulka Galmudug. saacadihii la soo dhaafay ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Galmudug oo ka soo horjeestay xildhibaanada shalay looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka Galmudug ee dhanka Xaaf ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan shaqooyinka loo idmaday, waxa ayna sheegeen in aysan aqoonsanayn xildhibaanada looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo ay taalo gogol lagu dhisayo Galmudug loo dhan yahay isla markaana dawladda dhexe ee Soomaaliya ay hareer martay dhismaha maamulka Galmudug. khilaafka ka taagan dhismaha maamulka Galmudug ayaa xogeystay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii la bedelay qaar ka mid ah odayaasha saxiixayaasha Galmudug. weli waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News. haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar. markana dowladda Kenya ayaa cabsi ka muujisay in mar kale al-shabaab ay weerar ka geystaan gudaha dalkaasi. saraakiisha ciidamada booliska ee Kenya ayaa sheegay in ay foojignaan dheeraad ah ay galeen ciidamada ammaanka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii ay Kenya ka warheshay in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay weerar ka geysan doonaan gudaha gobolkaasi. ciidamo dheeraad ah oo iskugu jira boolis iyo military ayaa lagu soo xoojiyay deegaanka Elwa, Katulo iyo wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Mandera iyo deegaanadaasi. gudoomiyaha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay heegan buuxa geliyeen ciidamada dawladda Kenya si ay uga hortagaan weerar kaga yimaada dhanka xarakada al-shabaab. waxa uu sidoo kale sheegay in ay heleen xog ku aadan in al-shabaab ay doonayaan in ay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya. ciidamo badan ayaan geynay deegaano duleedka ka ah degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halkaasi oo laga cabsi qabo in al-shabaab mar kale ay soo weeraraan, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka bari. dhinaca kale booliska dalka Kenya ayaa soo saaray digniin ku aadan weeraro kaga yimaada dhinaca dagaalyahanada al-shabaab magaalo xebeedka Bambasa ee dalka Kenya. Jubbaland ayaa ku dhawaaqday howlgallo ka dhan ah deegaanada al-shabaab ay ka maamulaan gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gado. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa booqasho ku tagay deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamo ka tirsan Jubbaland. madaxweynaha ayaa halkaasi u tagay in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee halkaasi saldhigyada ku leh. maalmihii la soo dhaafay ayay fuliyeen howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubbaland. madaxweynaha oo qayb ka mid ah ciidamada kula hadlay halkaasi ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ay fuliyeen ciidamadu ay tusaale u ahayd sida ay uga go'an tahay dagaalka al-shabaab, isagoo xusay in tobaneeyo ka tirsan al-shabaab howlgalkaasi lagu dilay. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in qaarkood gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo hubkoodii, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in howlgallada ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab looga baahan yahay in ciidamadu si aad ay u laba jibaaraan si looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ka wada hadlay arrimo xasaasi ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray shalay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay halkaasi, iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. madaxweyne Farmaajo oo casuumad rasmi ah oo qaadanayso muddo 2 maalmood ah ku joogi doona Asmara ayaa wada hadallo uu la leeyahay madaxweyne Afwerki ay ku lafuguri doonaan sidii loo dardargelin lahaa dhismaha hanaanka iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhaqan dhaqaale ee labada dal, kaasi oo madaxda ay isku afgarteen bartamihii sanadkii 2018. labada madaxweyne oo kulan saacado badan qaatay ku yeeshay madaxtooyada Asmara ayaa iska xog wareystay dadaalada wadajirka ah ee labada dal ay ku xoojinayaan xiriirka walaaltinimo iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee la xiriirta xasiloonida amniga, siyaasadda
iyo dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Afwerki ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdiga wehelinaya aqbalaada martiqaadkii uu u fidiyay, isagoo tilmaamay in ay isdhaafsan doonaan xogo muhiim ah oo la xiriira dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Eritrea. Dhigiisa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay dowladda iyo shacabka dalka Eritrea sida diiran ay u soo dhaweeyeen ee martiqaadka heerka sare ah ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa. halka aad warkaasi kala socotaanna waa Al-Xurriya News. markana akhbaraadka dibadda, hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa Carabta ayaa geeriyooday. dowladda Cumaan ayaa ku dhawaaqday in uu geeriyooday Qaabus ibn Saciid oo ahaa hogaamiyihii guud ee dalkaasi. suldaanka ayaa dalkaasi xukumayay muddo 50 sano ah, isagoo sanadkii 1970 afgembi xilka ugala wareegay aabihii. muran badan ayaa ka taagan cidda bedeli doonto boqorka maadaama uusan dhalin wax caruur ah, waxaana sharciga dalkaasi dhigayaa cidda boqorka in ay iska soo xulaan qofka bedeli doona madaxweynaha geeriyooday. 3 maalmood oo barordiiq ah ayaa lagu dhawaaqay, sidoo kale 40 maalmood ayaa calanka hoos loo dhigay dalkaasi. 72 saacadood gudahooda ayaa la rajeynayaa in lagu dhawaaqo qofkii bedeli lahaa boqorka geeriyooday ee dalka Cumaan. ugu dambeyntiina Iran ayaa shaacisay ciddii ka dambeysay shilkii diyaaradeed ee diyaaradii Ukraine Airlines. dowladda Iran ayaa xaqiijisay in ciidanka gacanka Iran ay soo rideen diyaaradii dhawaan ku dhacday dalkaasi ee Ukraine Airlines kadib markii ay shaki ka muujiyeen in ay duqeyn rabtay saldhig ay leeyihiin ciidamada dalka Iran. wargoor dhow ka soo baxay dowladda Iran ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay ku dhawaatay xero military oo xasaasi ah, waxaana loo dejiyay qalab bini'aadanimo awgeed. sidaasi waxaa sheegay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Iran. dowladda Iran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo shaacbaxayay khilaaf kala dhaxeeya iyada iyo dalka Mareykanka, waxaana laga cabsi qabaa in labadaasi dowladood dagaal uu ka dhex qarxo. guud ahaan daawadayaal wararka aad kala socoteen janaalka Al-Xurriya News xilligan waa naga inta. haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambalelkana furo si aad u heshid wararka 24 saac halkan aanu soo gelin. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada warkayaga.